hay-adda Alpha Trust oo fadhigeedu yahay cariga Ingiriiska ayaa maanta deeq lacageed soo gaarsiisay dad danyar ah oo ku kala nool xaafadaha magaalada Hargeysa. Dadkan danyarta ah oo isugu jiray dad xanuun la ildaran, dad maskaxda ka xanuunsanaya iyo waliba agoomo. Mas'uuliyiinta hay-addan oo joogay cariga Ingiriiska oo kala ah Daahir Cali Kulmiye iyo waliba Cabdisalaan Muumin ayaa waxay u soo wakiisheen deeqda lacagta ah Luqmaan Xaaji Cumar iyo waliba Engineer Ismaaciil Caydiid Aadan Jumekiya. waxaana ugu horeyn halkaasi hadal ka soo jeediyay Luqmaan Xaaji Cumar iyo waliba Ismaaciil Caydiid Jumekiya oo iyagu loo soo wakiishay deeqda lacagta ah. anigu waa Engineer Ismaaciil Caydiid Aadan Ismaaciil Jumekiya waxaan soo booqanay dad aad u fara badan oo sheekhu uu mas'uul mataqaanaa soo wargeliyay laftigiisu oo nagala shaqeeyay hay'adda soo dhibtay Alpha Trust waxaan leeyahay Daahir Cali Kulmiye iyo Cabdisalaan labaduba jazakallahu khayr idinkana khayrkeeda wada helaysan qolba joogto dhawaato Soomaaliland waxaan ka codsanahay inay dadkooda ka warhayaan. waxaan halkan uga mahad celinayaa hay'adda Alpha Trust iyo Daahir Cali Kulmiye iyo Cabdisalaan sadaqada ay soo dhiibteen u soo dhiibeen walaalahooda reer Soomaaliland ee halkan ku dhibaataysan. aad iyo aad baan idinka mahad celinayaa. Ilaahay waxaan ka baryayaa inuu meesha ka soo saarteen xasanaadka idin saaro khayr. ilaa hadda waxaan soo marnay ilaa 6 family baan soo marnay oo dhibaataysan oo gurigan ugu dambeeyay. insha Allah idinkana ajarkiina heli doontaan. sheekhna waan u ducaynaa insha Allah isna khayr Allah si uu noo fududeeyo hawsha. dhinaca kalena waxayna hay'adda Alpha Trust dadkii danyarta ah ay ugu mahad celiyeen deeqdan lacagta ay soo gaarsiiyeen iyo waliba Sheekh Cabdalla oo isagu dadkani danyarta ah xaaladooda la socday. hawla waxaan ahay gabadha ciyaalka haysata 12 ciyaal weeyaan 3 way dhagalaayiin inta kalena waxa weeyaan maxay hayday iska dhaga qabaan laakiin waa wada ay agoon. insha Allah khayr waan arkanaa inaad noo timaadeen sida quruxda badan leh sharafta badan leh guriga dhexdooda noogu timaadeen mahadsantiin walaalo aad iyo aad. hay'adda Alpha Trust baa noogu timiday guriga dhexdoodii annagoo iska dhex fadhina oo si qurux badan fadhina ma sha Allah tabarakallah barakallahu fiikum. waan deeyn faaraha deer badan igu mudiyo imsa xamsan sintaan lag amad ilaa waxaan sinay ilaa ingirta rabada way xanuunsanaysaa imka wax bugtay ilaa 10 sanadood weeyaan xanuunkeygu iyadoo yaroo ilaa waxa la helay maxay ahayd 4 bilooda markaas saasay dhulka u taala anoo rogo mooyaan isma rogayso wallahi caafimaadkeyga kalena uu iska liitaa cuntada wax jilicsan mooyaan wax burburan ma qaadan karto maxay ahayd saxara iyo kaaditoon iska ma hagaajinayso dad dan yarana waan nahay dad maxay ahayd dhakhtar geyn karana ma nihin dalka dhexdiisana waxba looguma qaban karo dhakhtar dibadeed mooyaane marka waxaan dhakhtar dibadeed ku geynana ma hayno waxaan ka codsanaynaa maxay ahayd adduun weynaha waxaan ka codsanaynaa cid wax nala qaban karta inaan taayarayna naloo caawiyo dhakhtar dibadeed sidii loo geyn lahaa. waxaan aad ugu mahadnaqayaa walaaladayda soo booqday ee dadkan danyarta soo booqday ee ugu yimid halkan kulay duruuftoodana la ceeshay waayo waa ayaamkii ciidda waa ayaamkii u dambeysay ee hadii camalka khayrka ah oo laabmay marka kulay walaaladay horta aad baan ugu mahadnaqayaa ma aha goobtan oo qorata may soo sinin goob fara badan bay soo mareen oo kulay xaaladooda aad ka yaabi doontaan oo aragteen xaaladooda sidee tahay. anigu waxaan ka mas'uulahay Jimciyada Raxmad Khayriya ayaan ka mas'uulahay Sheekh Cabdalla Maxamed Ibrahim baa la yiraahdaa. walaaladina waxay ugu yimaadeen aan ogahay dad fara badan oo danyar oo dhibaataysan aan ogahay saasay ugu soo doorteen oo ugu yimaadeen. Cabdirashiid Cabdiwahaab Xuseen Universal TV Hargeysa.